ظاهرka dhinaca kale xigana waa cadaab buu yiri ilaa subxaana wa tacaala wadaahiruhu min qibalihi alcadaab. markii saa loo kala teeday intii dukanaysayna iftiin iyo nuur ay ku jiraan, inta kalena mugdi iyo jahannamo iyo naar ay ku jiraan, way qaylinayaan yunaaduunahum alam nakum macakum, war miyaanan idinla jirin, mu'miniin ma idinla ahayn miyaa, meeshaad ku nooleedeen soo anagu kuma noolayn. yunaaduunahum alam nakum macakum, maxaa loogu jawaabayaa qaaluu balaa haa walaakinakum fatantum anfusakum, naftiinaad fidnayseen. maxay ku fidneeyeen macaasi, maxay ku fidneeyeen been, maxay ku fidneeyeen barbagaanto, maxay ku fidneeyeen ilaahay oo la caasiyo, maxay ku fidneeyeen salaad la'aan, maxay ku fidneeyeen weyse la'aan, maxay ku fidneeyeen diin raacid la'aan, maxay ku fidneeyeen qur'aan la akhriya la'aan. goormee noogu dambaysa masxaf qur'aan oon soo qaadan oon kala bixin, qof kastoo naftaada dib ugu noqo. goormee noogu dambaysa xataa juscamo la akhriyo. intaa waan hadalnaa, inta afkeena waa ka soo baxa, inta hadalkeena afkeena hadduu aamusnaan lahaa xataa waxbay ahaan lahayd. waqtiga aan kala goosgoosano, xillina waxana anfacaya aan qabsano, xillina ilaahay aan u dhowaano, xillina qur'aanka aan akhrisano, xillina salaada aan hagaajino, xillina nafta ha loo raaxeeyo, xillina ehelkii iyo ciyaalkii waxyaabaha kale ha lagu dhex jiro oo ha lala ciyaaro. saasaa loo baahan yahay, saaca bisaaca. qofku waa inuu saas ahaado. xaq buu leeyahay, ilaahay xaqiisa bani aadamka yaan la siinin, xaqa ilaahay leeyahay ilmaha yaan la siinin, ilmaha xaqooda meel kale yaan loo bixinin, salaada waqtigeeda wax kale yaan la gelinin. xilli kasta waxa ilaahay cibaadada uu u jaangooyey aan samayno, wuxuu ilaahay noo qadaray aan samaysano. taasaa wanaag iyo horumar iyo qiime iyo sharaf lagu gaarayaa adduun iyo aakhira. walaalayaal, salaadu wax sahlan ma aha, salaadu wax fudud ma aha. ma u jeedaa dhawaaqa iyo qaylada ka baxaya, dhanka naartay soo xigaan, weli lama gelinin, hadday ku sii socdaan, waa la rabaa in la sii geliyo. maxay leeyihiin? yunaaduunahum alam nakum macakum, qaaluu balaa haa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum, waad nala sugteen dhibaato inay nagu dhacdo, wartabtum, waad shakideen, wagaradkum nolosha adduunkana way idin sirtay, nolosha adduunkana way idin sirtay. caafimaadkiiuusan noo been sheegin, noloshaysan noo been sheegin, xoolaha aan haysanaysan noo been sheegin. xilli baa la gaarayaa intaasoo dhan la tirtiri doono, xilli baa la gaarayaa lacagta aad haysata aadan cuni karin oo sakaraad aad marayso, xilli baa la gaarayaa guriga fiican ee aad leedahay aad dhisatay aadan ku raaxaysan karin. marka aad dhimato lagugu dhexdhaqi maayo, war naga bixiyaa laleeyahay odayga meydkiisa, war guriga ha naga wasaqaynina, war faraashka waa adaa gatay, adaa iibsaday, salaada xilligii la tukanayaad iibisay, ilaa xaggiis wax kuuma yaalo. dadka agtoodana fiiri, meydka naga bixiya, meydka naga qaada, war meesha lagu dhaqageeya, war guriga ha ka wasaqaynina, war urkiisa naga bixiya. xaaladaasaa markaa la gaaraya. walaalayaal, intaan wakhtigaa la gaarin, intaan saasna la dhihin, maantay nala gudboon tahay inaan xiriirka ilaahay adkaysano. cid kale wax u tari kartaa ma jirto. yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a waalamru yowmaidin lilah. amarka maalinta qof naga jafayo aboorkana ma jiro, qof dhinacaa dhulkana loo dhigaayo gogol noo dhigaysana ma laha, qof wax noog soo gurmanayana ma jiro, qof mataqaanaa wax ku anfacayana male. waxa wax ku anfacay waa salaadaada, waxa wax ku anfacay waa cibaadadaada, waxa ku anfacay waa diintaada, waxa ku anfacay waa ku xirnaanta ilaahay, waxa ku anfacay waa khayrka iyo wanaaga, waxa ku anfacay waa masaakiinta waxtarkooda, waxa ku anfacay waa bani aadamka iyo muslimiinta. dhibka inaad ka dayso, jaarka oo la wanaajiyo, qof kasta afkaaga khayr ka soo baxa, qof kasta wanaaga iyo diinta alla ku socodkeeda, qof walba kitaabka munasalka barashadiisa, ku dhaqankiisa iyo akhrintiisa waa waxa ku anfacaya. waxa ka soo haray oo dhan wax ay anfacayaan iyo wax ay noo tarayaan iyo wax mataqaanaa ay noogu maqan yihiin haba yaraatee ma jirto, haba yaraatee ma jirto. qofka caaqilka ah waxaa la yidhaahdaa man daana nafsah, qofka naftiisa xisaabay una shaqaystay geerida ka bacdi. caajis, doqon waxaa la yidhahdaa qofka nafsadiisa hawadeeda raacay buu oo iska yididiyay, waa lagu dhaafi doonaa. ilaahay waa ghafuuru raxiim, ilaahay ghafuuru raxiim waa yahay. nabi cibaadii annii ana alghafuuru raxiim. ayaddu intaa kuma ekaynin, wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim, cadaabkaygana waa ka kan yahay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. idan maxaana laka rabaa bayna alkhawf waalraja, cabsi iyo rajo inaan ku jirno. shimbirka waxa uu laba baal, qofka mu'minka waxuu ku duulo waa laba baal, labada baalee mu'minka uu ku duulo waa khoofka iyo rajaha. labadaa mid ka mida haddii la waaye ma duuli karo qofka mu'minka ah. shimbirta marka hal baal ay ka maqan tahayna ma duuli karto. saa darteed baa khoofka iyo rajaha waxaa lagu kala fasiraa oo lagu kala tilmaamaa inay yihiin labadii baalood oo qofka uu ku dhaqdhaqaaqi lahaa.
bacdamay saas ay tahay baa labadooda loo baahan yahay. qola buu ilaahay ammaanay, muxuu ku ammaanay? wayadcuunanaa ragaban warahaban, wayna baryaayeen, markaasay waxay nagu baryaayeen cabsi ay cadaabkeena ka cabsanayaan iyo rajo ay jaraynayaan. labadaba waa loo baahan yahay. cabsi keliya ha isku furin, ilaahay wuu ku cadaabi doonaa, ilaahay naar buu ku gelin doonaa, dhabaabkaas keliya ha isku wada furin. ilaahay wuu ku jannayn doonaana ha isku furin, labadaba ku jira. cadaabkana ka cabso, jannada ilaahayna rajay subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay, salaada qiimahaasay leedahay, laakiin maanta waa la dayacay, maanta waa laga hurday, maanta waa laga seexday. in yaroo ilaahay u naxariistay maahane subxaana wa tacaala. goormaa noogu dambaysay salaad subax la tooso oo masaajid la aado oo markaa lagu soo tukado? lama yaqaano waqti noogu dambaysay. duhurka muxuu nagu dhaafaa hawl iyo shaqo, casirkii maxay nagu dhaaftaa qaylaad iyo waxyaabo kale, maqribkii muxuu nagu dhaafaa meelaha qaxwooyinkoo la fadhiisto, cishaa'iga muxuu nagu dhaafaa jiif iyo hurdo. xaaladaasay ku dhammaatay. marka aaway ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo diray, awa amarkiisii, awa wixii hadda saxaabiga weydiiyey ee loogu jawaabay, salaad wakhtigeeda lagu tukada ayaa markiican. qiyaamaha marka la tago dadka mu'miniinta buu ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala, inahaa la ixda alkubar nadiiran lilbashar liman shaaa minkum an yataqadama aw yata'ahar kullu nafsin bima kasabat rahiina ilaa asxaaba alyamiin. midigta asxaabteeda maahane, dadka kitaabkooda gacanta midigta laga siin doono, fii jannaatin yatasaa'aluun, janno dhexdooday ku sheekaysanayaan buu yidhi ila subxaana wa tacaala. yay ka sheekaysanayaan can ilmujrimiin, mujrimiintii, dembiilayaashii, taariku salaadiintii, intay salaad ka tagtay. can ilmujrimiin, intay dul tagaan bay leeyihiin maa salakakum fii saqara, war saqara maxaa idin keenay? naartan saqara waa naartuu ilaahay yidhi laa tubqii walaa tadar lawaaxatun lilbashar. meeshiiad ku jirtaan maante maxaa idin soo geliyey? maa salakakum fii saqara. jawaabta ugu horaysay bixinaan maxay tahay? qaaluu lam nakun min almusalliin, salaadaanu ka tagnay, salaadan tukan weyne, salaadan hagaajin weyne, salaadan ku raaxaysan weyne, salaadan ku khushuuci weyne, salaadan xafidi weyne, salaadan daa'imi weyne. maa salakakum fii saqar qaaluuna almusalliin. waa jawaabta ugu horaysaa ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. idan salaada waa lagu liibaanaa, saan soo tilmaanay. insaanka ilaahay waxa uu ku abuuray, insaanka wuxuu ku abuuray ilaahay haluucnimo, wax lagu magacaaba haluuc. idaa massahu sharu jazuuca, shar hadday taabatana waa argagaxayaa buu yidhi ilaahay. waidaa massahu alkhayru manuuc, khayr hadduu taabtana waa mancinaya. waa dabciga insaanka aan fiicnayn. labaa lagu yaqaanaa haluucnimo. haluucnimadana waa shar u adkaysi la'aan iyo khayr mancin. labadaasaa lagu yaqaanaa. waa dhaqan xun, waa dhaqan aan fiicnayn. ila almusalliin buu yidhi ilaahay, dadka tukada mooyaane. ilaa musalliinta, dadka ilaahay subxaana wa tacaala dartii u tukaday oo diin alla la yimid oo xariggaa ilaahay ilaaliyey. waayo salaadu waa cimaadu diin, waa diinka tiirku ku taagan yahay. ninkii oogana diintuu oogay, qofkii dumiyana ama ka taga diinta alluu dumiyey. saasaa la tilmaamay. sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala mar allaale markuu xaaladaa noo tilmaamayey oo salaada khayrkeeda iyo wanaaggeeda iyo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga lagu gaaro wuxuu ku tilmaamay insaanka inuu laba dabci leeyahay, haluucnimo. waidaa massahu sharu jazuucan waidaa massahu alkhayru manuucan ila almusalliin, dadka tukada mooyaane. yayhiin dadka tukada? ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun. horta kow salaaday daa'imaan buu yidhi, ma kala googooyaan. salaadooda waa daa'im, salaadooda waa mid xiriir ah, salaadooda waa midaan kala go' lahayn, salaadooda waa mid joogto ah, salaadoodu maba ka tagaanba ilaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisay markaa kala kulmaan. aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum. xoolahoodana xaq macluum ah lagu leeyahay. islaamka wanaaggiisay ka mid tahay inay iskaalmeeyaan. abaaraha markay yimaadaan, biila-aanta markay dhacdo, mashaakilaadka markuu dhaco, gobolka kale waa u taraxumaa, waa u soo gurmadaa, waxbuu siiyaa. wixii asagu haysto ka bixinayaa jeebkiisa. sababtu maxay tahay? iimaan buu leeyahay. wuxuu og yahay waxaan hadda uu bixiyo bedel ka badan inuu ilaahay siinayo subxaana wa tacaala. markaasuu ilaahay wuxuuba ku tilmaamayba xoolihii ayaga ay lahaayeen oo ay kasbadeen oo ay shaqaysteen wax lagu leeyahay oo kale, masaakiinta inay markay xaq ku leeyihiin oo kale. markaasuu ilaahay yidhi waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum. yay siiyaan lisaa'ili, ka weydiistaa. war waa baahanahay waxa lay tara ka dhahaa. iyo walmacluum,
midka والمحروم midka محرومkee aamusan maxaa lagu yaqaanaa musalliinta maxay u tukanayaan والذيina يصدقوuna بيوم الدين maalinta qiyaamaha ayay rumaysan yihiin hadday rumaysan yihiinna waxay maqleen waxa ugu horeeya qiyaamo la iska xisaarayo inay salaada tahay hadday fiicnaatana camaladooda oo dhan ay fiicnaanayaan hadday xumaatana camalada ka soo haray oo dhan ay markaa xumaanayaan marka والذيina يصدقوuna بيوم الدين maxaa lagu xijiyey dadka musalliinta tukadaa والذيina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun cadaabka ilaahay ka cabsanayaan subxaana watacaala waayo ina cadaaba rabbihim hayru ma'muun cadaabka ilaahay ma laga aamin noqon karo maxaa kaloo lagu yaqaanaa musalliinta والذيina hum lifuruujihim xaafiduun waxay xafidaan farjiyaalkooda waxay ka ilaalinayaan xumaanta macaasida zinada waxyaabaha ilaahay diiday sababtu waxay tahay waa musalliin sababtu waxay tahay halkii maalin bay 5 mar ilaahay hor istaagayaan subxaana watacaala ilaa nebiga uu yidhi salaadu waxay la mid tahay webi biyo badan leh oo albaabka axadkiin maraayo halkii maalinna uu 5 mar ku qubaysanayo qofka wasakh ma ku haraysaa waa webi haddana biyo badan buu leeyahay meel dheer la aadi maayo albaabkaagu ku dhex yaalaa halkii maalin baad 5 mar ku qubaysanaysaa mayay dhaheen saxaabada mu haraysa ninka wasaq waxaa la mid ah mithla salawaatul khamsi salaadaha 5 ah sida ninka webiga ku qubaystay 5 mar uu wasaqda uga baaba'o yay dembiga uga tirtirtaa qofka mar allaale markuu salaada daa'imo markaasuu ilaah yidhi والذيina hum lifuruujihim xaafiduuna farjiyaalkooday xafidaan ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda maahane aw maa malakat aymaanuhum ama waxay midigyaalkoodu hanatay fa inahum hayru maluumiin lagula dagaali maayo laakiin faman ibtaqa dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun intii dalabta waxaa gadaashooda waa dad xadgudbay buu dhahay ila subxaana watacaala musalliinta maxaa lagu yaqaanaa والذيina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun ballanada iyo amaanaadka waa xafidaan waayo salaadaa kalifaysaa waa dad ilaahay u dhow waa dad ilaahay ka cabsanaya waa dad ilaahay qadarinaya saa darteed bay bani aadamka qadarinayaan oo ammaanada ay u dhiibtaanna way xafidaan ballanada lala galana kama baxaan والذيina hum bishahaadaatihim qaa'imuun markhaatiga si run ah ayay u furaan buu yidhi ilah subxaana watacaala maxaa lagu soo qatimay والذيina hum calىa salaatihim yuxaafiduun salaaday xafidaan buu dhahay ilah subxaana watacaala ulaa'ika fii jannaatin mukramuun jannay ku dhex jiraan kuwa ayagoo mukramiin ah oo markaa la ikraamayo haddaba dardaarankeenu waa salaada waayo nebiga markuu dhimanaya hadalkiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa asalaad wamaa malakat aymaanukum salaada xafida iyo waxay midigyaalkiinu markaa hanatay marka ilahi baanu ka baryanaa inuu xaqana na waafajiyo salaadana noo sakhiro noona fududeeyo culayska iyo